qaar ka mid ah waayeelka waxgaradka iyo dhalinyarada beesha degta galbeedka magaalada Ceerigaabo ayaa ka soo horjeestay jabhad maalmihii la soo dhaafay lagaga dhawaaqay buuraleyda Uurweyn waxaana waxgaradkan iyo waayeelkani ay daadifeeyeen jabhadaasi iyagoo sheegay inaanay beelahaan aanay metelin lana mowqif iyo talo ahayn waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya daaran yahay shir saxaafadeedka yagani arrimo soo baxbaxay oo ku saabsan jabhado iyo wax noocaas horta marka hore waxaan xaal ka bixinayaa inamada ayreena inta qoryaha qaateen yidhi jabhad baanu nahay filinkaa horaa loo galay waa dhammaaday filinkaasi jabhado iyo meelo la istaagtaago iyo filinkaasi waa dhammaaday marka labaad waxaan xaal ka siinayaa beesha lagu abtirsaday ee laleeyahay jabhad baa samaysay war beeshu waa annaga jabhadaan ognahayna ma jirto waana beel ballaaran oo suldaama leh aqoon-yahana leh wasiire leh cid walba leh waxaan aad u yara dhaliilayaa waxaad moodaa xukuumadda iyo beeshu in xidhiidhkii relationkii u dhaxayn lahaa ee ahaa wasiirada iyo dadka xukuumadda u shaqeeya iyo beeshu inana iska warrayn halkaasi waa dhaliil xagga xukuumadda ah muuse biixi waxaanu nahay dadkii doortay fartayadaanu ku saaray kursiga qori kaga ridi mayne fartayadaanu horta kaga ridaynaa saluug baa jira markay habboonaato fartayadaanu kaga ridaynaa waa saluugsannahay ta kale ee laleeyahay saraakiil baa la laayey saraakiisha dowladdu nagama layn dee dad baa naga laayey dadkiina waanu naqaanaa saraakiishoodiina waa naqaanaa waana dadaan wada degannaho wada joogno oo isnaqaano in maalin walba media laisla soo taago sarkaal baa layga dilay iyo waxaasina anigu hadal nuqsaanaan u arkaa mana raacsani mana taageersani haddii dee dowladdu wax naga dishay dee waa meesheed haddiise dad naga laayaanu garanaynaa inaynu mar walba media isla soo taagno dad baa nalaga laayay aniga waa arrin ila quman maaha shakhsiyan iyo inta ila ma garanaysaa ila mabda'aba waxaan halkan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa ama ku soo goobayaa inamada halkaa tegey beeshu waxay leedahay suldaan iyo jiif caaqilo iyo madax dhaqameed dee kolley waxaan anigu aaminsanahay inay suldaanka iyo ka hawl galaan iyo jiif caaqilku oo inamadaa yaryara malcamadaa ka saaqiday ay dee meelahoodii ku celiyaan iyo boosaskii ay lahaayeen sirgaafaadhina waxaan leeyahay war bal bulshadii aad wasiirka u ahayd iyo dowladdii isuma war haysaan xafiiskaaga iyo kursigaaga ku boodbooday iyo kuwa agaasimayaasha sheeganaya ee fadhigaab soo dhaafila waxaan leeyahay degmada Ceerigaabo iyo gobolka Sanaag madaxweyne waxa laga sugayaa wixii idin xidhiidhin lahaa inamada yaryar sheeganaya wuxuu ahaa in jabhadda in ay dib isu qabtaan oo dadkooga iyo wadankooga iyo carruurahooga eegaan wax jabhad la yiraahdo ma jirto kumana raacsanin reerkuna kuma raacsana wasiiraduna waxaad moodaa inaanay iyaguna dadkii doortay iyo dadkii ay deegaanka u hay iyo dadkay matelayeen inaanay war u hayn dee waxaan leeyahay adeer jabhadahan iyo waxaan booqbooqaya dee waa dhulkii ay ka shaqayn lahaayeen wasiiradu waa dhulkii ay u warhayn lahaayeen waa dhulkii ay baahidooda ogaan lahaayeen waa dhulkii ay ogaan lahaayeen waxa ka jira dhinaca kalena mujaahid xuseen coodhe oo warbaahinta kula hadlay hotel cadabi ee magaalada Ceerigaabo ayaa isaguna ka hadlay arrinta jabhadan cusub ee lagaga dhawaaqay buuraleyda Uurweyn ee galbeedka gobolka Sanaag waxaana mujaahidku uu sheegay inaanay xilligani habboonayn in jabhad lagu dhawaaqo isagoo ka digay arrintaasi waxaana uu xaal ka siiyay beeshiisa uu sheegay inaanay ka beel ahaan aanay u dhammayn jabhadaasi waxaan leeyahay odayaasha iyo madax dhaqameedka ka soo jeeda beesha waa inay hawsha wax ka qabtaan xukuumadduna waa inay wax ka qabataa oo odayaasha xidhiidh la samaysaa iyo waayeelka ka soo jeeda beesha ta kale cabasho way jirtaa beesha iyo xukuumadda ah xukuumaddu waa inay wax ka qabataa hoosna u eegtaa cabashada reerka iyo beesha xidhiidhka ka dhaxeeya dawladda iyo beesha waa xidhiidhkii aad buu jilicsan yahay waxaana jilciyey cidda u dhaxaysa iyo wasiirada mas-uuliyiinta kale ee reerka dawga mas-uulka ah xukuumadda iyo u dhaxeeya iyo reerka marka waxaanu leenahay waa inay waajibkooda horta ku tahay nimanka la yidhaahdo wasiirada in guryahoodii iyo deegaankoodii maanta jabhada lagaga dhawaaqo
oo aanay warba u hayn macquul maaha waa inay ka war hayaan waa inay iyaga iyo waayeelku isku xidhan yihiin nimada yarada jabhadda ah jabhadda sheegtay waxaan leenahay dalkani haddeer uma baahna jabhad deegaankan ah ka sheegatayna jabhad uma baahna xaalad dalkuna wuxuu ku jiraa xaalad adag xaaladda adag waxa weeye cuduraa jira dunidii oo dhan baa haansaab ku jirta cunaqabateyn bay ku jirtaa wax allaala wax isu dhaqaaqaya ma jiraan dadka halkaa ku ururayna waxaan leenahay war xunuuna caruuraha iyo maatooyinka iyo masaakiinta ha u keenine ku kala dareera meesha guryihiinni kala aada سعيد موسى فرات تلفزيون كبد عس تي في مقالة عرقاب.